بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله والصلاة والسلام على رسول الله. وحوي aad baan uga xumaaday arrinta talmaantay soo banaan baxday oo mooshinka kamaleeya madaxweynaha laga geynayaa. aad baan uga xumaaday, sababtaan uga xumaadana waxay tahay 30 sano ayaa dalku burburna ku jiray soona socday. intaasna waa loo soo halgamayay, raggii u halgamayay buu madaxweynuhu ka mid yahay oo hadda madaxweynayaashii ugu dambeeya. wax hore noo soo marayna maaha, wax macquulana maaha. fidyo iyo burbur dalka inuu burburkii dib ugu sii noqdo ayaa cid doonaysa keliya dhihi karta waxaanu qaadaynaa tilaabo noocaasa. marka aad iyo aad baan uga xumahay. waxaan leeyahay ilaahay ha loo soo noqdo, waxaan leeyahay wadaninimada iyo soomaalinimada ha loo soo noqdo. dhaartii ay dhaarteen ha loo soo noqdo, ha layska daayo xumaanta iyo muxuu ahaayey qofkaanaanan rabin iyo qofkaanaan raba. arrinta maaha dalkaa ka weyn, danta dalka hala fiirsado ayaan leeyahay. haddii heshiisyo ay jireen la galay oo dalo lala galayna haddii heshiisyadaasi waxay muxuu ahaayey dalka dan ayay u yihiin. wixii aan dan u hayna waa laga hadli karaa. waxay ka dhigan tahay in dalkii la burburinayo mar kale oo loo rabo burbur iyo dhulka inuu haddana ku dhaco. muddaa la soo waray markii aan muxuu ahaay annagu dalkii la burburay calankii dalka dib u soo celinay kadib intaasoo sano ayaa la soo waray. haatana waa la wadaa, shaqo fiican baa socota. burbur inuu ku dhammaado dalku haddana dib ugu noqdo ayay noqonaysaa. arrintaasna arrin la qaadan kara maaha, shacbiga soomaaliyeedna ma aqbalayo. waxaanan qabaa inay ka hor imaanayaan meel kastoo ay joogaan. ciddii isku daydaana waa cid khiyaano qaran wadda. waxaan leeyahay ha laga fogaado oo ha la joojiyo wixii khilaafa way jira. haddii dawladda ma aha dawladda prime ministerka madaxu ah, haddii dawladda wax laga sheeganayaa jiraan waa waxa weeye in lala hadlo oo guddiintada qabso laga wada hadlo weeye. madaxweynuhu waa ka sarreeya waxaas oo dhan oo dalka weeye. waxaan leeyahay ha la daayo fidnada oo dalkan yaan la burburin. ilaahay u soo noqda. hadda ka horna boqol goor baan idhiye ilaahay barya oo qur-aankiisa ku barya. dembigii aan gallay baa nala ku ciqaabayaa haddii haatan iyo waayo hore oo dadan hadda noolaynuba ay galeen. ilaahay inuu naga dulqaado. anuu markastoo aan ilaahay qur-aankiisa akriyo dalka iyo dadkana waa u duceeyahay. idinkuna kulligiin inuuna duceeyo iscaafiyana oo isdaaya, gacmaha isqabsada. meel kastoo aad joogtaanba walaalaad tihiin. adduunkaana la joogi maayo, wakti yarun baa la joogayahay. inta la joogo ilaahay ka baga ayaan leeyahay. gacmaha intay isqabsataan dalkiina dhista, kiina qabsada, iscaafiya muxuu ahaayey una soo noqda wadaniyadii iyo soomaalinimadii. dariiqa ay ku socotana calanka kor u qaada oo had iyo goor hor socda oo soo dhaweeya wixii wanaag samaynaya. wixii xumaan samaynayana tartiib wax xisaabtan oo waxa jira aan ka iska daayo. ilaahayna ha loo soo wada noqdo ayaan leeyahay.